degmada laasqoray iyadoo wax iskacaabina midna aanay ka hor iman imka bartaan iyadoo imka ay ciidamadu ay usii jeedaan dhinaca degmada laasqoray markii ay iyaguna ay ka baxeen ciidamada maamul goboleedka puntland oo ka warhelay in ay ciidamada somalilan ay si rasmiya ay ugu soo booleeyihiin waktiga iyada ah waa ciidankan oo uu hogaaminayo hoggaa usii gumayeystay xagga iyo degmada laasqoray waxaana hogaaminaya hogaan ku-xigeenka sancada maxamed daauud nuur oo si nabadgelya ay ciidamadu ay si rasmiya ay ugu dhigeen iyadoo ciidamadu ay ka soo galeen dhinaca badda iyo dhinaca dhulkaba farsimada ciidamadu ay degeen oo la yidhaaho xaranka oo amarkaan magaaladii inay isu muuqdaan waxaa dhinaca kale ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan ay jiida hore ee dhinaca bari ay ka degeen meel u jirta 7 kilomitir oo magaceeda la yidhaaho laasmacaan waa ciidankan oo si nabadgelya ku galay iyadoo dadweynaha ku dhaqan degmada laasqoray si wacan ayaguna ay soo dhaweeyeen aragtaan ciidamadii imika inay duleedka magaalada ay u degeen oo ciidanku aanu gudaheeda ay gelin taasoo shacabweynihii ku dhaqnaa degmada laasqoray ay si fiican ay usoo dhaweeyeen halka ay waqtiyadii hore ay ka arki jireen mararka qaarkood ciidamada puntland marmar ay soo galaan iyagoo lasoo gala gaadiidkooda hubka taasna ay argagax gelin jirtay dadweynaha ku dhaqan degmada laasqoray sidoo kale imika aragtaan hogaanka ku-xigeenka sancada ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan maxamed daauud nuur in uu imika uu booqan doono ciidanka jiida hore iyo kalena ay soo mareen meesha la yidhaaho durduri oo u jirta 7 kilomitir waxaa imika uu booqanayaa ciidanka jiida hore ee ku dhaqan meesha loo yaqaano laasmacaan waxaa imika aan si rasmiya aan u dhex maraynaa degmada laasqoray oo ay imika ay tahay waktiyada xagaaga ah ee kulaylaha ah oo dadweynuhu inta badan ay u baxaan dhinaca oogada ee qabowga ah iyadoo ay tahay meel aada iyo aada u qurux badan oo ay ka dhisan yihiin 2 warshadood oo ah warshadii hore kalluunka iyo warshad cusub oo hadda gacanta lagu hayo waxaa sidoo kale iyadana si rasmiya loogu samayn doonaa dekadii oo ay iska kaashanayaan xukuumadda jamhuuriyadda somalilan iyo dadweynaha ku dhaqan degmada laasqoray iyo jaaliyadaha dibadda iyo hay-adda magaceeda la yidhaaho hot relief oo ay iska kaashanayaan taas oo sida ugu dhaqsaha badan le iyadana loo samayn doono waxaa imika idiin muuqataa iyadoo imika dhex marayno magaalada bartankeedii iyadoo uu imika uu usii socdo dhinaca bari oo uu gaari doono hogaan ku-xigeenka sancada maxamed daauud nuur oo booqanaya fadhiisamadii ay ciidamadu ay ku lahaayeen jiidaha hore waxaa imika halkan uu soo gaaray guutada 93aad xuseen dheere oo halkaa ay isku gacan qaadeen iyo madaxdii kale maxamed daauud nuur oo u warramay telefishinka caalamiga ah somaliland space channel
oo goobta ku sugnaa ayaa waxaa uga warramay xaaladda. alihi وصحبه وسلم تسليما كثيرا كبيرا. تدوينها دمان صحافة جعلية ضدك مارك ورارك هذا يجر طولبه وحن هالك نقصه قبيلة أمرك ورا سلام كبعدي وحن نسلنا بالجلية ونقصه قرنا هاي براها الديجان ك تجمدة تولد مارك لاسقري سلنا بالجلية هي نوجبنا واحد قالها مارك كدعي مجرى جورنالada sida aad maqasho waxa lagu qoray maaragtay din baa ka dilaacay qaranka waxaan kaasa waxba kama jirin taas waa beeroy si nabadgelyo noogu suganahay wax dhibaato imika xilligan ka jiraan ma jiraan dadweynaha shacbiga ee degan wax dhibaato iyagana kalamaan kulmin si wanaagsan bay ayay maaragtay noola ayay maaragtay wax noola qabteen noola soo dhaweeyeen waanan ku hambalyeelana waxaan uga gudbayaa dad ma garanaysaa ajnabiya oo lagu haysto buuraleyda dhexe kuwa waxaanu leenahay si degdega faraha ugala baxa arrinkaa aad ku jirtaan dalku noqon maayo mid lagula soo ambado dad ajnabi oo lagu toorjinkareeyo oo lagu jirdilo meel meesha joogaana waanu geli doonaa halkale haddaan idii sheego ciidamada qaranku way u dhan yihiin ha u kala maaragtay awood badnaadaan macnaha tira ahaan iyo dadkay ahaanba ha kala badnaadaan way dhamaystiran yihiin ciidanka maaragtay qaranka ciidanka badda ciidankii booliska intuba way ku dhan yihiin halkan waana ka hawlgalaan badda iyo berigaba iyo buurahaba. idiin muuqda ay tahay warshada kalluunka oo iyada imika uu ka socdo duwadhis ballaadhan oo imika aan soo booqanay. waxaa sidoo kale iyadana ka socotaa dekeda oo iyadana dub loo sameynayo taas oo iska kaashanaya